dowladda waddanka Sacuudiga ayaa shaaca ka qaaday qorshe ay in badan ku hawlanayd oo ahaa in la sameeyo goobo dadka lagu maaweeliyo sida tartamada weyrixinta dibida ee ka jira dalkaasi Spain iyo in sare loo qaado samaynta goobaha madadaalada waa tallaabo uu garwadeen ka yahay dhaxal sugaha waddankaasi Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Sacuudigu wuxuu ku rajo weyn yahay inuu bilaabo goobo lagu soo bandhigo tartanka quruxda haweenka iyo tartamada heesaha qoobka ciyaarka. madaxa madadaalada waddankaasi Sacuudiga Turki al-Sheikh ayaa sheegay inuu doonayo inuu tallaabadan ku soo xareeyo balaayiin dollar oo dakhli ah. isku dayga ah in Sacuudigu uu noqdo xarunta madadaalada ee gobolka waxaa majaraha u haya dhaxal sugaha waddankaasi Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo dalkiisaba waxaa soo food saartay dhibaato dhanka subcadda kadib dilkii wariyihii caanka ahaa ee Jamaal Khashoggi. inkastoo ay beeniyeen arrintaasi xilli uu daahfurayay istaraatiijiyadda madadaalada ee xukuumadda Riyaad, Turki al-Sheikh waxa uu soo hadal qaaday tiro ka mid ah waxyaabaha ay doonayaan inay ku soo bandhigaan tartamadaasi. waxaana ka mid ah tartanka dagaalka dibida, ciyaaraha internetka, heesaha qoobka ciyaarka iyo kubadda kolayga. tartanka quraanka kariimka ayaa waxa uu ka mid yahay waxyaabaha lagu soo bandhigi doono. qofkii ku guuleysta quraanka waxa uu heli doonaa abaalmarin gaaraysa 1.3 milyan oo dollar. sidoo kale waxaa la qaban doonaa bandhigyo sida salaada loo tukado iyo weliba aadaanka. waa sida ay hadalka u dhigeen tartanka ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah mid lagu tartamayo sixirka iyo faalka inkasta oo ay dembi yihiin. waxaan rajaynayaa buu yidhi in dhammaan shirkadaha, bangiyada iyo ganacsatadaba inay garabna siiyaan. waa fursado dahabi ah ayuu yidhi madaxa barnaamijkan Siciid Axmed Tamreyse, wararka telefishinka caalamiga ah Star.